agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha ayaa arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa furay kulan hawleedka tala bixinta barnaamijka qaran ee daljir kaas oo ku saabsan kobcinta dawladnimada iyo sidoo kale ilaalinta nabadgelyada iyo ka hortagga qabyaaladda waxaana kulankaasi ka qabsoomay xarunta wadaniyadda iyo barashada dastuurka ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyadoo kulankaasi ka soo qayb galeen saraakiil ka kala socday wasaaradaha hay'adaha iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee Soomaaliland waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha xarunta wadaniyadda iyo barashada dastuurka Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac Danaakili waxaanu ka warramay isla markaana ku dheeraaday muhiimadda kulankani. barasab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeexe iyo sidoo kale saraakiil kale ayaa iyaguna bogaadiyay isla markaana wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ku amaanay kulamada noocan oo kale ah ee ku saabsan qarannimada iyo sidoo kale kobcinta dawladnimada iyo ka hortagga qabyaaladda. برنامج شيء ما عم تجلس العالم المسؤولية ودي مقدسة اللي كده بتقول سؤالين هذا الشيء ما واجب كهو المنارة شيء بتقول سؤالين العالم المسؤولية اللي كورتنا بتنتهي بالعين عصير وضع عصور قبيلات صوتها دم كسولة حفاظ السعير إلى كي ما يقبل الناس لكن مع مهمة أنا السيمونات وكيف العلوم الواقعي وكيف وضع الشمسي سيوسي للمدن إن أي سمانية شرعي حكمية قبيلة. أنا عم سنة هاي ما عرفت أسلوب شغلي بسؤال كيف برشيدي سنة ولاش مسار وحيوية كفيدة قريت الوكيلة يوم ولا ويقف واقي يعني وش يقولوا كل هاي حامل هو وقال أديك محاط وقتها حامل قبلني طبعا تسوق جهود الشباب هذا مطلوب حق على الخير كريم مسك agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa bogaadiyay qorshaha lagaga hadlayo kulankani waxaana ay soo jeediyeen ka qaybgalayaasha kulankaasi inay ka faa'iideystaan isla markaana ay muhiimad gaar ah siiyaan kulankaasi. كوان لدى عندنا اسمها دستور وتنظيمات هذه الذي يعمل نروح ربنا يدور إما كان واحد لو ذينا إلا يودنا كنا ندت كنا يسوي عليه فهم كل اللي مثلا التلبية والسوق يسوي تفسير أو كنت يقول شيء أنتي لجمع هذا على جمع هذا مش على جمع هذا استلم بف يقول كنا قلبي يسوي ودنا يرجع يكون وراء كأيوه وقوينا وكأسعد الدولة كأسعد نرجع به بيقول معي إنه يلف وين يروي من الكاسين يا بيقول من ده فعلنا حلوة بنوت هاي وعلى مسؤولية مع كل كان عايزين يقولنا ده هنقرن هيدا برنامج كندسي أو عن عرناي واقي وري وده وصوتي يعتبر وكانوا عايزين يقولوا لي كليه ترى كان دان كورلو قاعدين قيم وضعيتها يفهم كل المدى وكنتي الموضوع سنرد بس يعني إن صداع ولا ويبي عامين ضغط فيها يعني كيرت من هذه النقطة تفسيرا كل كل كانوا نقول معي وهم بدون كل كل غير غير دونا وعن كل سنة نقولها ذلك أمر من يمدوا إنه كان كل هاي هذه نقطة نسبيسة هذه نقطة منكيسة هذه نقطة الجريديسة هذه نقطة الغناء فإنه بركة ريو وقات كلية هاي أدرك ما نطلع عليه
iyo mas-uuliyaadka ka saaran runtii waxay keenaysaa in doorka muwaadinka ee qarandhisku runtii xoogayso marka waan ka mahadnaqaynaa muhiimaddu waa un xorulgulin iyo taladiina waxaan jecelahay wixii idinka suurtagal intaad kulka joogtaa inaad mudari doontaan markaad xafiisyada la tagtaana in howlwadeennada kale wasaaraddiina aad kala weydiin doontaan dabeetana aad dib noola soo wadaagi doontaan khaliil barra awraan warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.